نبي يعقوب waxa uu ka soo jeedaa qoys wada nabi ah abtirsigiisna wuxuu noqonayaa Yacquub ibn Isxaaq ibn Ibrahim alayhi salaam sidii aynu ku soo sheegnay qisadii nabi Isxaaq alayhi salaam nabi Isxaaq ayaa guursaday gabar lagu magacaabi jiray Rifqa bintu Yatu'il muddo badanna wax ilmo uma aysan dhalin markaasi ayuu Ilaahay ka baryay inuu caruur siiyo kadibna Rifqa ayaa dhashay laba wiil oo mataana ah magaca wiilka hore waxaa loo bixiyay Cizwa oo sidoo kale loo yaqaanay Cays mataankiisii oo isagana loo bixiyay Yacquub oo sidoo kale loo yaqaanay ama lagu naanaasi jiray Israa'iil nabi Yacquub alayhi salaam dhalashadiisu waxay ahayd bishaaro xag alle ka timid si lamida dhalashada aabihiis alla ayaana u doortay malaa'igtiisa inay bishaaradaasi u geeyaan qoyskii nabi Ibrahim alayhi salaam sida ku soo aroortay aayadda 69aad ee suurada Hud markii nabi Ibrahim iyo xaaskiisii Saara loogu bishaareeyay dhalashada wiilkooda Isxaaq waxay malaa'igtu ugu bishaaraysay inuu Isxaaqna dhali doono wiil lagu magacaabo Yacquub daawadayaal ku soo dhawaada xalqada aynu ku eegayno qisada nabi Yacquub alayhi salaam intaynaan u gudbin bilowga qisada ku soo biir channelka oo subscribe saar bogga facebookna follow dheh nabi Yacquub alayhi salaam wuxuu ahaa mid dhowrsoon oo sharaf badanay ah allana wuxuu ku sifeeyay inuu ahaa qof dulqaad badan markasta oo ay arrini ku adkaatana alle subhanahu wa ta'ala tala saarta ayada 47 ee suurada Saad alle wuxuu ku sheegay in Ibrahim alayhi salaam in Isxaaq iyo wiilkiisa Yacquub ay kamid yihiin akhyaarta alle doortay sidoo kale alle wuxuu meelo badan oo quraanka nabi Yacquub ku sifeeyay inuu ahaa mid samir badan oo tala saarashada alle ay ku weyn tahay sidoo kalena ah nabiyada suuban ee uu alle doortay magaca nabi Yacquub quraanka waxa lagu sheegay 16 jeer ka sheekaynta qisadiisana inta badan waxay ku dhex jirtaa ka sheekaynta qisada nabi Yuusuf alayhi salaam sidoo kale magaciisa wuxuu alle subhanahu wa ta'ala raaciyay marka la xuso magaca awowgii Ibrahim aabihii Isxaaq iyo awlaadiisii loo yaqaanay asbaad inta badan ka sheekaynta qisada nabi Yacquub waxay xoog saartaa tusaalena ka bixisaa sida uu u ahaa aaba ku dadaala ku barbaarinta awlaadiisa kelmadda xaq ah run sheegidda ku dhaganaanta daacadnimada alle iyo sidoo kale ku yeeridda cibaadada alle caruurtiisa in ay dhowraan kana fogaadaan shirkiga waxa uu raacay raadkii aabihii iyo awowgii wuxuuna ahaa nabi alle oo dadka guud ahaan gaar ahaanna awlaadiisa ugu yeera xaqa qayb kamid ah culimada taariikhda ayaa wariyay in nabi Isxaaq alayhi salaam in markii uu weynaaday aragiisu daciifay kadibna waxa dhacday inuu maalin wiilkiisii Ciswa u dirsaday inuu u keeno hilib uu cuno Ciswa ayaa u baxay duurka soo soo ugaarto hilibna ugu keena aabihiis Yacquub ayaa isaguna sidoo kale intii uu Ciswa maqnaa aabihii hilib u doonay kadibna waxa labadoodii soo hormaray Yacquub alayhi salaam halkii ayuuna nabi Isxaaq ugu duceeyay inuu noqdo wiilkiisa Yacquub mid barakaysan oo taran badan yeesha Ciswa markii uu soo laabtay ayuu arkay in laga soo hormaray wuuna yara carooday kadib Yacquub alayhi salaam ayaa ku yiri Ciswa maanta kadib adigu aaba daryeel aniguna waxaan aadayaa dhulka Shaam ibn Kasiir waxa uu wariyay in nabi Yacquub uu soo aaday abtigii oo ku noolaa deegaan la yiraahdo Xaraan oo ka tirsan dhulka Shaam intii uu dariiqa ku jiray ayuu meel ku nastay halkii ayuuna xoogaa seexday intii uu meesha jiifay ayuu wuxuu riyo ku arkay isagoo alle subhanahu wa ta'ala la hadlaya riyada waxa loogu sheegay in reerkiisa iyo halka uu degan yahayba la barakayn doono Yacquub markuu hurdada ka toosay safarkiisii ayuu sii watay wuxuuna gaaray halkii uu u socday ee deegaanka Xaraan abtigii ayaa aad u soo dhaweeyay halkii ayuuna muddo ku nagaaday abtigiis waxa uu joogay laba gabdhood oo la kala oran jiray Laya iyo Raaxil nabi Yacquub alayhi salaam waxa uu jeclaystay inuu guursado Raaxil balse aabaheed ayaa ku yiri gabadha weyn oo joogta midda ka yar lama guursanayo sidii ayuuna nabi Yacquub alayhi salaam ku guursaday Laya waxayna u dhashay 6 wiil kadibna waa ay ka geeriyootay nabi Yacquub marka ayuu guursaday Laya walaasheed Raaxil oo ka yarayd oo iyaduna u dhashay 2 wiil oo kala ahaa nabi Yuusuf alayhi salaam iyo walaalkii Benyamin waxa sidoo kale la wariyaa in uu nabi Yacquub guursaday 2 dumar ah oo kale oo iyaguna ay u dhaleen 4 wiil sidaasi ayayna awlaadii nabi Yacquub ay ku noqdeen 12 wiil quraankana magacooda marar badan ayuu ku soo arooray iyada oo alle subhanahu wa ta'ala ugu yeerayo asbaad waxayna noqdeen 12 qabiil ee ay ku abtirsadaan reer bani Israa'iil maadaama nabi Yacquub magaciisa kale uu ahaa Israa'iil dadkii ka farcamayna waxa loo bixiyay bani Israa'iil ama ilmihii Israa'iil muddo kadib nabi Yacquub alayhi salaam waxa uu ka soo guuray deegaankii Xaraam waxa uuna ku soo laabtay Falastiin isaga oo qoys iyo xoolo badan iyo adoomaba wata ayuuna aabihiis nabi Isxaaq u tagay muddo kadibna Ilaahay ayaa u waxyooday nabi Yacquub sidaasi ayuu nabi ku noqday yeeridii aabihii Isxaaq kadib waxa uu halkii ka sii waday dacwadii iyo ku yeeridii cibaadada alle oo kaliya markasta wuxuu ahaa mid u taagan xaqa allena wuxuu ku sharfay inuu noqdo mid wanaag badan ah
oo dacwadda alle markasta u taagan nebi yacquub. waxaa soo martay qiso aad u xanuun badan oo si wacan alle uga faalooday qur-aanka. ilmihiisii ayaa dhagar u maleegay walaalkood yuusuf calayhi salaam, oo ay dareemeen inuu aabbahood ka jecel yahay. waxay go'aansadeen inay yuusuf fogeeyaan si jacaylka aabbahood ay ugu kali noqdaan. maalin ayay ku yidhaahdeen, aabbow, yuusuf ha nala soo ciyaaro. nebi yacquub markii hore waa uu ka cagajiiday inuu ku daro, laakiin markii ay in badan ku celceliyeen ayuu u oggolaaday. kadibna intay meel fogeeyeen ayay ceel ku rideen nebi yuusuf calayhi salaam. habeenkii ayay aabbahood u soo laabteen iyaga oo ooyaya oo wata khamiiskii yuusuf oo dhiig leh. waxayna ku yidhaahdeen, yuusuf waxaa cunay yey, annaga oo ciyaar ku mashquulsan. markaas ayuu ku yidhi, naftiinna ayaa arrin idiin sawirtay, aniguna waan dul qaadanayaa oo alle ayaan tala saaranayaa. nebi yacquub wuxuu ahaa mid markasta niyadda ku haya soo guryo noqoshada wiilkiisii uu aadka u jeclaa ee yuusuf calayhi salaam. maalin ayuu ilmihiisii u diray inay aadaan masar si ay reerka ugu raadiyaan raashin. wuxuuna kula dardaarmay inaysan magaalada ka wada gelin hal irid oo albaabo kala duwan ay ka galaan si aysan ishu ugu dhicin. markii ay magaaladii gudaha u galeen ayay la kulmeen wasiirkii ugu awoodda badnaa masar oo ahaa nebi yuusuf calayhi salaam. isagu waa uu gartay inay yihiin walaalihiis, balse iyagu may garan inuu yahay qofka hortaagni inankii ay ceelka uga tageen. kadibna si xeelad leh ayuu ula haray walaalkiis ku hooyada ahaa ee benyamin, isaga oo weelkii beeg raashinka u geliyey kiishkiisa. kadibna ku yidhi, ninkii weelkii boqorka laga helo waa laga reebayaa safarka intiisa kale. markii laga helay beeggii raashinka kiishkii uu benyamin watay, marka ayay ku dhaheen la har midkeen, iyagoo ka welwelsan waxa ay kula hadli doonaan aabbahood haddii ay ka tagaan benyamin. waxayna sii raaciyeen hadalkoodii oo waxay dhaheen, wiilkan waxaa dhalay aabbe waayeel ah oo horay u waayey walaalkii ka weynaa. laakiin nebi yuusuf waa uu ka diiday. kadibna waxa ay ku laabteen aabbahood yacquub iyagoo ku yidhi, aabbo, wiilkaagii benyamin weelkii boqorka ayuu xaday, sidaasi ayaana nalooga reebay. intaasi markii uu maqlay nebi yacquub calayhi salaam, mar kale ayuu xusuus murugo leh galay. wuxuuna xusuustay yuusuf iyo siduu ku waayey. siduu u ilmaynayay ayay indhihiisii caddaadeen, wuuna indhabeelay. wuxuuna yidhi, murugtayda alle ayaan u sheeganayaa. alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa waxaan ka ogahay waxaydan idinku ka ogeyn. kadib waxa ay ku soo laabteen nebi yuusuf xaggiisa, waanu isku sheegay. halkii ayayna cafis ku weydiisteen walaaladii iyaga oo ka xun qaladkii ay yuusuf ka galeen. kadibna waxa uu ku yidhi, khamiiskaygan qaada oo wejiga aabbe u saara, alle ayaa araggiisa u soo celin doona. nebi yacquub markii khamiiskii yuusuf loo keenay ayuu yidhi, caraftii yuusuf ayaan dareemayaa. kadibna khamiiskii ayay indhaha u saareen, alle ayaana araggiisii u soo celiyey. kadibna nebi yacquub calayhi salaam waxaa loo soo waday masar oo ahayd halkii uu joogay wiilkiisa yuusuf calayhi salaam. halkaas ayuu farxad kula midoobay, allana u sujuuday. muddo ayuu nebi yacquub calayhi salaam ku sugnaa masar. kadibna waxa uu ku soo laabtay falastiin sida ku soo aroortay aayadda 133 ee suuradda baqara. markii ay geerida u timid nebi yacquub calayhi salaam, ilmihiisii ayuu isku soo arooriyey. kadibna weydiiyey, maxaad caabudaysaan geeridayda kadib? waxay ku dhaheen, waxaan caabudaynaa ilaahaaga iyo ilaaha aabbayaashaada ibraahim, ismaaciil iyo isxaaq, ilaah keliya. annaguna alle ayaan aaminay oo aan isku dhiibnay. nebi yacquub calayhi salaam waxa uu ku geeriyooday dhulka falastiin, waxaana lagu aasay qabri ku dheggan qabrigii aabbihii isxaaq iyo awowgii ibraahim. dhammaantood nabadgelyo korkooda ha ahaato. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما